fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh kuna dhufo calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada aan halkan soo gelino waa mahadsantihiin. bismillah alxamdulillahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin wala cudwaana illa cala zaalimiin. shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay maalmaha kan waxyaabo socday ee wasaaradda maaliyadda waxba aan lagala ogeynin ay rabto ummadatan hirshabeelle in ay ku baabi'iso amba iska horkeen ay ku keento annagoo metelayna shacabka dowlad goboleedka hirshabeelle u metelayna ka guddi ahaan annaga waxaana loo xil saaray wasaaradda maaliyadda inaan kor joogtayno oo aan la soconno qaabka waxyaabaha ay ku wado. haddii aan ogaa weynay wasaaraddii la shaqayn guddiga ay ka tagtay hadda waxaan wakiil ka nahan u malaynaa amba xaqiiqa ay tahay shacabka labada gobol ummadda shacabka labada gobol waxaan ugu baaqaa amba aan u sheegaa ka guddi ahaan iyo ka xildhibaan ahaan iyo ka golo baarlamaan ahaan wasaaradda maaliyadda waxa ay ka shaqaynaysa shalay ugu dambaysay hotel safa wasiir ku-xigeenka maaliyadda uu ka qabanayay iyo guddoomiyaha degmada waxba inayna kala soconin waxaan baarlamaanka la horkeenin oo aan la sharciyeenin hal boonaba allah ka dhigay shacabka in laga qaado annagaa kasoo horjeedna ma ogolin mana yeelayno. waxaan ku hadlaynana waa magaca guddiga maaliyadda ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle. waxaa jira khilaafka hadda ka socda hiiraan madaxweynuhu uu jiro waxaan aaminsana madaxweynuhu wax ka huriyo waayo sababtay tahay dhaqaalaha la qaadayo wax miisaaniyad ah oo muxuu ahay annaga aan kala soconno amba muddo 2 sano laga qaadayo wax dowladda iyo baarlamaanku ay inta ka wada fadhiisteen arrintaas laga wada munaashaqooday intaana soo hortay akoonka shacabka ugu hartay amba intaana dhiman wasaaradda maaliyaddana nama dhihin madaxweynuhuna nama dhihin. sidaas darteed shacabka labada gobol arrinta laga shaqaynayo in ay xaaraan tahay waxba aanan ka ogeynin intaasaan rabaa inaan idinla wadaago. aad u mahadsantihiin. gudoomiye waxaa jirta in marar badan aad u yeerteen sida nagu maqaalo ah wasiirka maaliyadda inuu hor yimaado golaha baarlamaanka arrinkaasi ma ajiibay oo ma yimid golaha baarlamaanka su-aalasa ma ka weydiiseen waxyaabaha aad qabanaysaan ka guddi ahaan? maya waxaa noogu dambaysa wasiirka maaliyadda wees casiri doonaa 7 maalmood gudahood mar baarlamaanka hortooda ka yiri haddii lacagta xeewahay arrintaas ayaan ka samay waayo muxuu ahay midayn labada gobol maalintaasaa noogu dambaysa 1 sano laga joogaa. soo lama dhihi karo wasiirka maaliyadda waa uu ku guulaystay howshiisii midaynta ee labada gobol maadaama hiiraan laga soo dhaqangeliyey haddana shabeellaha dhexe la wado in laga dhaqangeliyo barnaamijkan canshuureyn? maya anugu mayaan leeyahay waxaan ognaha gobaratoorihii hore gobolka hiiraan iyo wasiirku inay xataa gacan ka hadal ay tagtay saxaafaddana laga qariyey. annaga saxaafadan la wadaagaynaa ummadda beenta loo sheegaa la wadaagaynaa. markii aad aragtaan qof wax samaynaysa waxay leedahay leel fadhi annagu saasaan dhahnaa. madaxweynaha ayaa arrintan raalli ka ah madaxweyne ku-xigeenkaan leeyahay raalli ka yahay sababtay tahay intaba haddii arrintaas guddiga ama baarlamaanka la wadaag la leeyahay madaxweyne dheer wuxuu samayn karaa yarata ma jirto akoonkaana wax laba lacagoo ku soo dhacda ma jirto. jawharna akoon gaaraha loo sameeyey hiiraanna akoon gaara wal banki waa u sheega iyagana wax arrintan aan kala soconaba yaraatee ma jirto dowladda federaalkana u sheegaynaa. aad mahadsantihiin. ka guddi ahaan waxaad ansixiseen miisaaniyaddii sanadda 2019 wax xisaab celina uu idinku soo celiyey wasiirka maaliyadda ma jiraan ilaa iyo waqti xaadirkan? maya wax uu nagula soo celiyey ama uu nala wadaaga ma jirto. shalay sirka hotelkan ka dhacay wasiir ku-xigeenka waa la xiriiray wasiirkana waa wuxuu ahay masjid ayaan u qoray iigamana soo jawaabay mudane wasiir isoo wac intaba markii aan wax ka weydiiyey arrinta tan madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka hirshabeelle shalay inta lagu qabaan waxba kale ma ogan yihin. waxaa kaloo jooga oo wasiir ku-xigeenka uu ii sheegay wasaaradda maaliyadda federaalka dadka socda iyo hay-adaha magaaladana ku jira ama saacada soo socota soo galo waayo. waxaan uga digaynaa ummadda inayna iska horkeenin. waxaad ogtihiin xalay 7 saac iyo bar waxaa ka dhacday magaalada meel aan u jirin 1 kilomitir xabad ragaa ku dhaawacmay. waxaan aaminsana wasiirka maaliyadda cirbad lagu daaweeyo in uunan haynin. anaa inta soo wadaan isbitaalka ka daaweey waxaan ka daaweey farmashiga ka daaweey isbitaalka xataa daawo ma jirto. marka waxaan ugu baaqaa shacabka hirshabeelle arrintaas inay ka digtoonaadaan nimanka dhaqanka odayaasha loo yeerayo annagaa metelno. war nabadoonow golo deegaan wax la yidhaahdo ma jiraan waa la isku kiindiro waaya canshuur wax la yidhahdana ma jiraan waa la isku kiindiro waaya. hadhow markii miisaaniyadda annagu ansixinay canshuuraha iyana loo keeno ganacsatada waxaa la rabaa hay maxaad bixin kartiin in la yidhahdo
ilaan dowladnimada waxaa waaye maxaad bixi kartiin annaga xukun ina wax ku fulina ma hayno sadaqana si inaan dhahno canshuur ujeedada laga leeyahay waxaa waaye waa amni qofka inuu helo amni ma haystaan ummaddu xalaad ogtiin meeshan cali shoo bare afkiisa watii aad xalla dhufaysato xabadda way ka dhacdo